السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal meel kasto dunida nagala socotaan waa habeenimo khamiis ah bisha December ay sii galayso soo doon sanada 2021 qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah dagaal culus oo ka socda agagaarka magaalada Makale ee caasimada gobolka Tigrayga. qoyska Mukhtaar Robow Mansuur oo xog lama filaan ah bixiyay kadib warkii ka soo baxay hay'adda nabad sugidda ee NISA. taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Odowa oo amar siiyay ciidamada dawladda iyo Mareykanka oo joojiyay taageeradii uu siin jiray ciidamada BSF-ta ee Puntland. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan aad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal. soo dhawaada. aan ku bilownay dagaal xooggan ayaa maanta ku dhaxmaray agagaarka magaalada caasimada oo ah gobolka Tigrayga ee Makale ciidamada dawladda federaalka dalka Itoobiya iyo waliba jabhadda TPLF-ta. magaalada lagu magacaabo Abala oo ku taala agagaarka magaalada Makale meel aan ka dheerayn oo u jirta qiyaastii 50 kilomitir ayuu dagaalkani ka dhacay kadib markii ciidamada dawladda federaalka dalka Itoobiya ay rabeen inay ruqaansi u sameeyaan dhinaca magaalada Makale kadibna ciidamada dawladda federaalka dalka Itoobiya ay iska caabin xoogani kala kulmeen ciidamada kooxda fallaagada noqotay ee TPLF-ta oo ku sugan halkaasi. dagaalka ayaa la soo tabinayaa inuu ahaa dagaal qorsheysan oo ciidamada dawladdu ay ku rabeen inay ku gaadhaan magaalada caasimada oo ah Tigrayga ee Makale kadibna ciidamada TPLF-tu ay halkaasi iska caabin xoogani ka sameeyeen. ciidamada TPLF-ta ayaa horey u sheegay inay difaaci doonaan gobolka Tigrayga iyo waliba caasimada Makale waxaana xilligan ciidamada dawladda federaalka dalka Itoobiya ay isku dayayaan inay gaadhaan magaalada caasimada oo ah Tigrayga. dhinaca gobolka Canfarta ayay ka soo galeen ciidamada dawladda Itoobiya waxaana halkaasi isgarabsanayay ciidamada Canfarta iyo waliba kuwa dawladda federaalka dalka Itoobiya. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa horaantii isbuucan safar qarsoodi ah ku tagay gobolka Canfarta. halkaasi ayaa la soo tabinayaa inuu ra'iisul wasaaruhu u tagay sabab la xiriira abaabulka dagaalka lagu qaadayo magaalada caasimada oo ah Tigrayga ee Makale waxaana uu halkaasi kula kulmay ra'iisul wasaaruhu generaalada ciidamada ugu sareeya gaar ahaan kuwa ku sugan jiida gobolka Canfarta. ciidamada Canfarta iyo waliba kuwa dawladda federaalka dalka Itoobiya oo ah ciidamadii ugu horeeyay ee jabiya kooxda TPLF-ta isla markaana ka saaray gobolka Canfarta ayaa ku sugan magaalada Abala oo qiyaastii 50 kilomitir u jirta magaalada caasimada oo ah Tigrayga ee Makale. balse ciidamada halkaasi ku sugan ayaa la soo tabinayaa in dhowr jeer oo hore ay isku dayeen inay ku qaadaan weerar kooxda TPLF-ta oo ku sugan meel aan ka dheerayn ciidamada dawladda Itoobiya. difaaca kooxda TPLF-ta ee magaalada Makale ayaa la sheegay in halkaasi uu ka adag yahay isla markaana ciidamo fara badan oo TPLF-ta ah la soo dhoobay magaalada Makale iyo waliba agagaarkeeda. ciidamada dawladda dalka Itoobiya ayaa horey u sheegay inay gaari doonaan magaalada caasimada ah ee Makale balse halkaasi ay rabaan inaanay dagaal ku gaadhin oo ay ciidamada TPLF-tu ay baneeyaan magaalada. balse taasi ayaa u muuqata mid u eg riya maalmeed ay ciidamada dawladda Itoobiya ku riyoonayaan iyadoo ciidamada TPLF-tu ay haatan u soo jeesteen difaaca adag ee u dhigteen ciidamada dawladdu. dagaalka maanta ka dhacay agagaarka magaalada Makale isla markaana ciidamada dawladdu ay kaga soo duuleen dhinaca magaalada Abala ayaa u muuqday ciidamada TPLF-ta difaacoodu mid aan la hoolin karin iyadoo halkaasi la sheegayo in dagaalkaasi aan waxba la isku reeban balse ciidamada dawladda Itoobiya aanay samaynin wax dhaqaaqa oo xoogan. inkastoo baryahanba ay dagaalo goosgoosihii ka jireen gudaha gobolka Tigrayga ayaa la soo sheegayaa in ciidamada dawladdu ay haatan xoog badan saarayaan sidii ay u gaari lahaayeen magaalada caasimada oo ah gobolka Tigrayga ee Makale. magaaladaasi oo ah magaalada xudunta u ah gobolka Tigrayga haddii ay ciidamada dawladdu gaadhaan magaalada Makale ayay u fududaanaysaa inay si fudud ula wareegaan guud ahaanba gobolka Tigrayga. haatan aan eegno qoyska Mukhtaar Robow Mansuur ayaa xog lama filaan ah soo saaray kadib warkii ka soo baxay hay'adda nabad sugidda ee NISA. taliska hay'adda NISA ayaa qoraal jawaab ah xalay soo saaray kadib amar uu siiyay maalin ka hor wasiirka amniga Soomaaliya. waxay NISA sheegtay in la xanaaneeyo oo caafimaadkiisa laga warqabo isla markaana qoyskiisa ay iska warhayaan ayna waxbarasho jaamacadeed u ogolaadeen isagoo xabsi guri ku jira
warkaasi ka soo baxay taliska nisa ayaa waxaa beeniyey qaar ka mid ah qoyska Mukhtaar Robow iyagoo wax makama jiraan ku tilmaamay waxyaabaha ka soo baxay nisa. Mukhtaar Robow Abu Mansuur ayaa waraysi uu bixiyay sheegay in walaalkiis muddo 3 sano ku dhow aysan is arkin. qoyska Mukhtaar Robow Abu Mansuur ayaa ku tilmaamay xadhiga mid afduuba isla markaana ay codsadeen in la sii daayo dhowr jeer ama la soo cadeeyo waxa loo haysto. qoyska Mukhtaar Robow Abu Mansuur ayaa sheegay inaanay ka warqabin meesha lagu hayo Sheekh Mukhtaar Robow Abu Mansuur isla markaana hay'adda nisa ay sheegayso waxaan waxba ka jirin. hay'adda taliska nisa ayaan wali wax jawaab ah ka soo bixinin cabashada qoyska Mukhtaar Robow isla markaana waxyaabaha ay ku beeniyeen waraaqdii ay soo saareen ay ku sheegeen in Mukhtaar Robow uu caafimaadkiisa wanaagsan yahay isla markaana ay markasta is arkaan isaga iyo qoyskiisa. dhinaca kale waxaa goordhaweyd shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho taliyaha ciidamada xoogga dalka Jeneraal Odawa Yuusuf Raage kaasi oo ka hadlay marxaladihii ugu dambeeyay ee dalka. taliye Odawa ayaa shirkiisa jaraa'id ee uu qabtay ugu digay qaybaha kala duwan ee ciidanka inaanay ku milmin arrimaha siyaasadda oo ay adkeeyaan difaacii iyo waliba dhaartii ay u mareen difaaca qarannimada Soomaaliya. Odawa ayaa xusay in looga baahan yahay inay xoojiyaan dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo duulaanka ay ku hayaan shacabka iyo dowladnimada Soomaaliyeed. taliyaha ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo dhammaan hoggaanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka hor inta uusan qaban shirka jaraa'id isagoo la wadaagay fariintiisa siyaasadeed ee xilligan. ciidamada dowladda oo laba u kala jabay kuwa oo kala taageersanaa Farmaajo iyo waliba mucaaradka ayaa bishii Abriil ee sanadkii hore Muqdisho soo weeraray isla markaana gudaha magaalada ciidamo ka soo goostay Shabeellada Hoose ay soo gaadheen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho halkaasina ay xasilooni darro ku abuureen magaalada iyo dadka shacabka ah ee degan. haatanna Puntland dowladda Mareykanka ayaa sanad ka hor joojisay taageerada ay siiso hay'adda BSF-ta sida uu talaadadii maanta uu faafiyay barnaamijka galka baadhista ee VOA-da. galka baadhista oo uu daadiyo wariye Haruun Macruuf ayaa soo xigtay sarkaal ka gaabsaday magaciisa sababo la xiriira inaan loo ogoleen inuu ka hadlo arrimaha xasaasiga ah sida ku xusan warbixinta. xukuumadda Washington ayaa hakisay taageerada ay siiso BSF-ta kadib markii hoggaanka hay'addu ay diideen inay ka mid noqdaan cutubka Danab ee ka mid ah kumaandooska Soomaaliya. Danab oo la rumaysan yahay inay tiradoodu u dhaxayso 3,000 ilaa 4,000 oo askari waa cutub si gaar ah u tababaran oo Mareykanku maalgeliyo isla markaana uu tababaro. taliska Africom ayaa galka baadhista u sheegay inaysan xiriir rasmi ah lahayn ciidamada BSF-ta isla markaana aysan siinin taageero toos ah. waxaa lagu yiri nuqul ka mid ah baahinta barnaamijka balse sida ku cad warbixinta Africom ayaa rumaysan in ciidamada BSF-tu ay leeyihiin karti ay kula dagaalami karaan argagixisada balse waxay walaac ka muujiyeen madmadowga soo kala dhaxgalay iyaga iyo waliba ciidamada Puntland ee ka wada tirsan yihiin maamulkaasi Puntland. akhirta sharafta leh wada nagala socoto intaas waxaan ku soo koobaynaa guud ahaan wararkiina soo gaadhay inta ku kulmayna warkan warka xiga waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.